waa maxay dhibaatada ugu daran ee hortaada waa dhibaatada kufsiga waa dhibaato aad u culus waa dhibaato xawli ku socota haddaan isiyo xog yar sanadihii saddex sano u dambeeyay waxa uu ahaa sanadkii 2020 waxa kufsi oo soo galay dacwadaha maxkamadda booliiskana soo gaaray 116 sanadkii 2022 waxa booliiska soo gaaray tiro dhan 230 sanadka gudihiisa dacwadaha soo galay maxkamadaha iyo booliisku waxay kordheen 44% lixdii bilood 7 bilood ee sanadkan waxa booliiska soo gaaray maxkamadaha kufsigu waa 268 waa 7 bilood 3 kordh waa mashkalad aad iyo aad u culus oo ka dheeraynaysa aafo kasta oo inagu socota ragayadu waxay nala gudboon maxaynu ka qaban karnaa kufsiga waxaan intaa u soo qaato maanta halkan fariin uga dirayaa qof kasta oo xilkaasa da kasta ha ahaado qof kasta oo aqoon leh qof kasta oo damiir leh gaar ahaan fariinteedu waxay u socotaa culimada madax dhaqameedka madaxda siyaasiyiinta ee dalka hogaamiya labada gole madaxtooyo iyo xeer ilaalinba iyo maxkamadba waxaan fariin gaar ah u sii dirayaa dhammaan aqoon-yahanada ama jaamacadda hogaamiyana ku jireen dhakhaatiirta iyo qof kasta oo damqanaya mashkaladda inagu socotaa waa tu aayaheena mugdi gelinaysa iyo tacabkeena in loo gurmado oo loo isu taago oo la yiraahdo maxay u koraysaayeen u qaban lahayn inaan isweydiimaan u baahanahay in badan baa laga hadlay xeer baa laga soo saaray waa lagu murmay waa la isku haystaa ma waxaynu ku murmaynaa hablaheena saynu u nabadgelnaa hooyooyinkan iyo walaalaheen ma waxaynu isla fahmi laanahay saynu mustaqbalkeena badbaadinaa waa yaan daro